السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مقعي عبد الرحمن مقال كان waxaan sheekeynaa wax loo yaqaan online teaching waxa loo yaqaanaa inaad cashir ahaan aad ku bixiso cashirada aad ku bixiso lectures ku bixiso qaab online ah adigoo adeegsanaya video call ama adii ahaleed recording voice recording waa qaab online ah inaad ku bixisid cashirada si ugu bixi kartaa waxaad isticmaali kartaa Zoom wax loo yaqaano video recording muuqaal aad duubtay oo kale ee dhamaan baraha bulshada inaad ku bixiso ama si live ah inaad ku bixiso ma garatay okay waa maxay faa'iidada ku jirta inaad online teaching aad sameyso waayo online teaching ku ama inaad cashir ahaan loo bixiyo qaab online wuxuu aad u soo shacbaxay 2020kii taas oo dadweynaha idil 2019kii 2019 ilaa 2020ka taas oo dadweynaha dhan ku wada qasabtay in iskuuladii iyo jaamacadihii la xiro taas oo loo baahdo in cashiradii jaamacadihii iyo iskuuladii ay sii socdaan waxaana fududeeyay in la isticmaalo aalado kala duwan sida aalada Google Sites wax loo yaqaan Zoom taas oo ka dhigtay ama fududeysay in waxbarashadii qaab online ahaan u sii socdo haddaba adiga shakhsi ahaan sidee baad ugu faa'iideysan kartaa aqoontaada inaad ku bixiso qaab online ahaan waxa laga baahan yahay marka koowaad inaad tahay qof ama qabiir ku ah maado gaar ah muhiim ma ahan inaad wada taqaanid maado arag laakiin waxa muhiim ah inaad hal maado aad ku fiican tahay oo hal maado aad ku toosi karto oo halkaas maado aad gudbin karto fahamkeeda iyo sharaxaadeeda dadkana aad ka dhaadhicin karto taasoo ku sahlaysa markaas inaad horay u dhaqaaqdo oo aad online ahaan u bixiso oo aad koorsadaasi aqoontaada iyo maskaxdaada ku iibiso kasoo qaad waxaad aad u taqaanaa luqadda Englishka waad sharxi kartaa waad fahmi kartaa grammarkeeda dadkana waad u sharxi kartaa waan u gudbi kartaa okay si aad u gudbiso marka luqadda Englishka waxaad u baahan tahay inaad duubto agabyada ugu fudud aad ku duubi karto waxa waaye adigoo adeegsanaya muuqaal duubid ama screen record wax loo yaqaan adigoo adeegsanaya laptopkaada ama telefoonkaada si aad u duubtid waxaad u baahan tahay inaad diyaarsatid slaidyo ama buugaag English ah oo ku qoran waxa aad adiga soo diyaarsatay oo aad rabtid inaad gudbiso internet aad u baahan tahay muuqaalkaas inaad duubtid u baahan tahay muuqaalka markii aad duubtid waxa u baahan tahay meel aad dhigtid ama si live ah inaad u bixisid haddii aad si live u bixinaysid waxay noqonaysaa aaladaha live inaad ka gashid haddii yani qaab muuqaal duuban aad YouTube dhigayso ama Facebook aad dhigayso ama course ahaan inaad u iibinaysid markaas sidoo kale waa aad mid ku furan laakiin mar walba waxaad ku dadaashaa inay ahaadaan muuqaalo tayadoodu aad u sareyso sharaxaadaaduna tahay sharaxaad aad iyo aad u wanaagsan waana hab ugu wanaagsan ee aad nolol maalmeedka ama shaqo xaafadeedka aad ku qaban kartid oo aad ugu baxsan kartid nolol maalmeedkaada waa haddii aad yani qof dadaal badan aad tahay waana waxyaabo badan oo yani waxay ka mid tahay shaqooyinka ugu badan ee lacagta laga sameeyo halkaas waxaa nagu soo gabagaboobay online teaching muxuu ahaa sharaxaad guud mahadsanid channelka haddii aad ku cusub tahay subscribe si ku soo garaan muuqaalada xiga